بدنا وحوها كي تتبع يا كي دبعتيسن يا كي لسوق حيي ماشي وحاي وحاوي نون سنة مركز سيا درادة هذانا برنامج كي لقاتي جاليدي وحاوي كنتم قريي قبالي إنك سوق جوز سن بهاي مركز إن شاء الله تعالى تاني وحن لهاي وهل جن كقضية ضبطي النسيين وين وحمانتا يسرفا أنا كسوق كذا قبل كاس أنا كسوق قبله dadka halgamayaasha ee ka soo jeeda gobolka Soomaaliyeed ee ugaadeenaya xafladooda qiimaha badan ee halgamayaasha maanta sarafaysa taamir walaalayaal waxaan leenahay walaalayaal habeen iyo maalin iyo had iyo subax iyo aroor halganka aynu wadno yeena kala harin yeena ka daalin aynu kamra dhalin insha Allah waa kamra dhalinayna hadafkeena waynu gaarayna dadkii qodobada noogu horreeyay noo bilaabay wacdi wanaagsan buu noo sheegay khayr Allah ka siiyo waad maqasheen ninkii taariikhda ka hadlayay ilaa 1600 ilaa waqti hadda aan joogno waad maqlayseen wuxuu ka sheekeeyay in dib fara badan iyo xaalado culus wadanku soo maray ummadda Soomaaliyeed meel kasta ku nool yihiin dibkaas way la qaybsanayeen ummadda ogaadeenaya dibka soo gaaray waxaan rabaa markii inaad ogaatiin dhalinyarada yaryarka ah oo hadda soo koray inuu dib fara badan la soo maray dadkii dibkaas soo maray qaarna ay dhinteen qaarna hadda ay joogaan dadkii mathalan bedeli lahaa beritun adinka waa waxa weyn waxa guul weyna maanta Soomaaliya dhan inaad nabadeeda gacanta aad ku haysaan aad u gaarteen هم ملايين كلين كشناد ناتين كوا كليه وهذا كلين كشناد كليه كدوده تمام سومالي دبا غوميس ku jirtay waayo ila 77 kadib haraantadii naga soo raacday waqooyi ee la idinku garab galay ilaa hadda Soomaali ku burbursantahay dhulkan ku jirnaa gumeysi annaga oo qaasa inta in ka maqan yaan ku jirnaa kiin wuxuu waa dagaal rasmi ku qaadeen gumeysiga gaastay adinku waxa laga yaabaa in xoogay dadka alla deganeedeen col u haysaan oo idin xabad ka dhaxayso anagu adduunyada dhan baa hadda xabada nagu haysaba marka sayid hebel u taageerteen bayd laakiin waxa guulna maanta hadii idinku khilaafkiina ka baxay calankiinu babanayo shalaynan maqlahay in muxuu madaxdiini ay ka qayb gali doorashooyinka mustaqbalka gobolka Gaadeniya aad u farxad weyn bay tahay dhan walba dhinaca Soomaalida waxaan jecelnahay insha Allah khilaafaadka gudahooda inay xalin doonaan nabad barwaaqo la siin doono علماء عامة أنت دقن صومالي إنك وحقدورن إلى إنه توسيان كبرنا إن شاء الله تعالى. وحن كسر قاعدنا يا لو كن يسدد يتوكي بشي تبنا لو تني كودي تاسين ولا قرنا نسمع. هل كنا دير مراحل كلا جدسن أو فربلان بسامري مركب كوباد وحن على هاي ده كان كسر قريب قلي إن أن أشيره هل كنا إلا إنه كلفه إنه حبد الردنو. ما إننا نردين ولا نقولدين استدفاع بيننا هاين أنت هلا فهموا وحاسة أولها الصومالي فربنا يا وحيد هذا ورما سكلي شيء ثاني توبيوس كلنا نولاتان نرشة وضع نولان لهين وحاكر رئيسين إنه هالشيء كنا وضع كنا وعلى أفضوي وعلى قبصتي أبصين يا قبصتي مراحل فربنا بوله خيرات كودك وقاعدين يا شلال كيه إليهم هذا ساعتان بان مالك ده الشغال كنا كان مدحين كتيرة وحنا هنا ورالهم بحلا يا في شاركو هدعو صومالي واحد رضنا إن يدا هم ذودو هاي سرعة هذه بعد ما سنتين بسم الله أنت هديان كجذب تاريخ ولا جسور شيء كي هل كان كمرحلة صوم مري ملها إنه مرة أرض ولا شيء كي waxaa xusitaan mudan oo naadi aad ugu faraxsanahay xafladan inaan meeshan maanta ka qayb galo maalintii ugu dambeysay hoolkan shir baan ku galay halkan aan kamid ahaa markaan anagu waan ka carroonay dadkii ku soo haray habeenkii waa lagu weeraray meeshan waa lagu xabadeeyay haddana wakaas wada aragtay oo cid laga baqayo iyo cid aynu ka xiriiroweynaa midna ma jirto حالد مركز هالك بتورين إذا مركز محل لو بهاي هالجن كإن الوص على أدي اللي يجي هالجن كيو تشوك سنين ما تشوك سنين إثيوبيا ولي ما ينان كلا جورن
marka waxaa loo baahan yahay horta halganka inaan sii laban laabno inaan sii wadno kolka anigu waxaan ka soo baxay bishii 7 bisha hadda inaga tagtay kowdeedii baa tigtiga ka soo baxay isla kowdeedii baa Nairobi baan markaan u nimid waxaa la yiraahdaa dadkii dibadaha jooga xogaa badan laga sheekeeyay oo inaan marna ka gaabinin ilaahay baa inaga saaray inaan dayicin insha Allah taala inaan dayicin barnaamijkan hor u sii soconno insha Allah midnimo isku tashi barnaamijkeennii aan ku sii soconno waxa sida hadda sheekhiga hore uu sheegay marar badan waxa ina soo gal heer waxa la yiraahdaa markii la yar gaabiyo la heer yuusan ina gelin hawsheenu hore ha u socoto insha Allah taala sidana aan u fadhino mar walba munaasabad ama kulan la isugu yimaado sano kale la isugu yimaado mar walba kulankeenu munaasabad ha noqdo aad iyo aad baa u mahadsantihiin guulaysta insha Allah taala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hadday qoys tahayna de idinka jifo u ah marka sumadii way dhulka maqan baan ku raadinaynaa intaas aan raba inaan dhaho ma aha qabiil hadii la dhaho dhulkaas Itoobiya ku meysata dadkii ugu badnaa ee lagu laayay de qoyskaas u ahaa haddii marka ay qoys tahay lama laayo horta saa ogaada inuu halkan yahay Soomaali inta loo ciqaabay dadka qoys loo ciqaabo Soomaaliyeed ma jiro oo dhulka dega horta barsaa ogaada waxaas inuu qadiyad yahay oo Soomaalinimo uu yahay sidina uu taagan yahay una sii taagnaan doona insha Allah taala midnimada laga shaqeeyo dadka Soomaaliyeedna waa qoys waa hal mida waa hal qabiil walaalnimaha lagu wada noolaado halganka la garab istaago ummadda Soomaaliyeedna sidii lagu madan lahaa la garab istaago Allahu akbar ogaadeen ya xaroodo ogaadeen ya israacdo